yar haddaad isha ku soo dhawayso wuu qarinaya fartaydan ishaydo dhan way qarin kartaa haddii se la durkiyo way libdhaysaa adduunka inuu isku soo dhaweynay dabeetana noloshaba waynaga qariyay ma arki karaysid ilaa mercediska iyo mushaharka badan iyo waxaa mooyaane wax kale arki kari maysid walidalik buu taarikhyahankii Greek ahaa Plutarch wuxuu leeyahay qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuud wa mudunun bilaa qusuur wa mudunun bilaa madaaris ولكن لم توجد أبداً مدن بلا معابد. In history تاريخ بني آدم كبولي وحال هلاي مقالوين قديمة وأنقل عضلهين وحال هلاي بولي مقالوين واوين وقديمة وأن قصور يلهين دار نادر وحال هلاي بولي مقالوين أن schooling system وحبرش لهين لكن في التاريخ لما هي بولي مقالة أن ميل وحلو عابد لهين تاريخ الإنسانية وحا أركيولوجي قضاي وحا لباري لما هي بيلي مقالة بنا آدم وكنو لانشري وأن ميل وحلو عابد لهين ولذلك بلوتارك مركلم وحليه إن مدينة بلا أرض تقوم عليها أسهل من قيام دولة بلا إله. مقالة إناد دستان دولبا لهين يعني وحيرة مستحيلة إلا أن دولبا كتيرين وقولها مقالة دستان مستحيل تاسبا كفضد بولي دولة بلا إله إناد سميسو طبعا وحبرهم السنين يعني إنسان هو بفطرته هو عابدي هي لكن وحي سويدين تله يد عابده ولا هذا عابده النبي عليه الصلاة والسلام عليه تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد الخطيفة الضون وحا هوغي كالدرهم يدينار الضون إن العقل ورسها هذا ضون ولاتي يد عابديس عمرقاقا حوقاقا عقلقاقا تمرتاقا وحا قولنا وحا فوقيسي أكاونت كابوين وبطو أكاونت كان واحد كاستعمال سوا وحيا لكن إن الباديصو كبر باو الضونة قرية أخافك يا لون بدل ما أنت ودم بصو شقيل يا بدلال الله وضيا الله يا فردي قال بدلي والله وضيا قولك سيحشد اللي بدلي واحد الضونة طهي الهبتن ونين تبدش مورال سكينة. That's the purpose of your life. مالش هذا هدف كذي أنت ما تكلكتي. عمرقاقي واحد ما تكون شيخ الزنداني باو سوية لأنما خبرون خطيرة. مركز علم التشريح وكوريست. بني آدم وضنهم نوع قدام نوع ترى وجرده وجرا ولا شرح. بيركم نوع ترى كليوم نوع ترى كريم نوع ترى ولا شرح. تجد وحيري وحنودن أهداف تودي قرمي. marka la isku wada daray oo qof noqdo ka warrama waxa loogu tala galay isaga and that's philosophy yani ma aha cilmiga dhakhtarka ee waa philosophy baad ka warramaysa wali haddii acdaada qofka bini'aadamka mid walba waxa loogu tala galay la gartay waxay marka la isku daro haddaad gaari sharaxdo oo tidhaahdo taayirku waxan buu taraa injiinku waxan buu taraa steerinku waxan buu sameeyaa daaqadu waxan bay samaysaa marka la isku rakibo gaadhigu muxuu taraa tidhaahda garan maayo ka warran hadafku wuxuu ahaa gaadhiga wixii loogu talagalay inuu garano baartiskiisa may ahayn insaanku maanta nool in badanoo ka midi waxaa la garan la'ayay waa maxay hadafkiisu markaad hadafkiisa garataa baad garan kartaa goormuu guulaystay waayo hadafka markuu gaadho buu guulaystaa ninka 100 mitir ordaya markuu dadka ka soo dheereeyo xariiqdii loo jeexay uu ka soo tallaababa loo dhanayay waad guulaysatay waayo hadafkii baa la garanaya goolkii lagu socdaa la garanaya kubadda ciyaaraya labada birood ee meesha laga taagay markay caaga yar uu dhex maro ayaa la odhanayaa gool la qaylinaya ayuu u guulaystay hadafkii buu gaadhay bahashaba loo ereeriyay waxay inay halkaa ka baxdo haddaad noloshaba garan weydo marka hadafka laga leeyahay waxaad u nooshay haddaad garan weydo abidkaa guulaysan maysid se waxaad guulaysanaysaa markaad waxa sokoo dhan u arkayso ahdaaf marxaliya
hadafkaaga weyni goolkaaga weyni yoolkaaga weyni wuu kuu cad yahay aad ku socoto waxaanoo dhamina ay u adeegayaan yoolka weyn falaasafada iyo dunida ugu waaweyneyd nin ka mid ah falsafo faransiisa oo falsafa alwujuudiya existentialist miyaa la yidhaha falsafadan la yidhaha qolada rumaysanayd ayaa wuxuu arkay xaaskiisiiyo qoslaysa dabeetana miduu geliyey wuu dilay boolisku la hadlo wuxuu yidhi waxaan dilay xaaskaygii qaanuunku shaqadiinii wixii u baahnayd in boolisku ha qabto waa akbar caql filosofi faransa boliskii way yaabeen hebel professor hebel oo caqligii faransaba ugu weynaa waxaa lala hadlay janankii booliska haystay wasiiru daakhiliya la gaadhsiiyey madaxweynehay tagtay giscard ayaa madaxweyne markaa ka ah yani iminka hogaaminaya dastuurka yurub ay qoranayso madaxda waa giscard baa waxaa la yidhi akbar filosof cindana ba haweentiisii xaaskiisii dilay maxaa la sameeyey waxay yidhahdeen caarun calaa faransa an tacqila caqlaha waa ceeb bay yidhaahdeen maanta faransiis caqligii ugu weynaaye uu lahaa inuu xidho musixa caqliya ha la geeya baa la yidhi meelaha dadka xanuunsanaya madaxa ka jiran lagu hayo ha la geeyo ninkan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan muxuu u dilay wuxuu leeyahay nolosha tan baan hadaf lahayn filosofkan wuxuu leeyahay noloshan aan joogo hadaf ma leh whatsoever aan noqdo buu leeyahay wax kastoo aan qabto wax kastoo la sameeyo soo la dhiman maayo waxaan arkayaa buu leeyahay natiijo aanan dhaafi karin sida awgeed nolosha gebigeeduba waa cabas buu leeyahay waa cayaar nolosha gebigeeduba mar haddaan wax ka dambeeyaaba jirin wax kastoo aan noqdo mar haddaan kollayba dhimanayo waxaan sidhi buu yidhi kollayba haweentani de way dhimanaysaaye maantay faraxsantae iyadoo faraxsan dunida ha ka tagto iyadoo qoslaysuu dilay kollayba way dhimanaysaa marka malaa hadday joogtaa laxdaday ugu fiicnayde iyadoo faraxsan ha ka baxda dunida waxay leeyihiin dagaal lama gala bay leeyihiin aada og tahay inaad jabayso ciidanku haddii la ydhaha dagaalka waynu gelaynaa laakiin waa layna jebinayaa ciidama dagaalamaysaa hadday xaqiiqata in lagu jebinayo dagaalku macno kuma markaad rajo qabto ee inaad guulaysanaysa ama wax jebinayso dagaalku qiimo samaynaya wuxuu leeyahay nolosha tan haddiiba la dhimanayo maxay qiimo leedahay wax kastoo aan soo sameeyo soo ka tegi maayo therefore wuxuun baan dooran karaa buu leeyahay laxdada aan ugu farxad badanaya inaan ka baxo that's why maanta yurub qaanuunyahanadeedu xorriyaadka ku doodayaan waxaa ka mid ah xorriyada ah qofku naftiisa wakhtiga uu doono inuu ka takhallusi karo oo xorriya ragu doodayaan inaan dhinto markaan u baahdo wasaaradda caafimaadku bay leeyihiin qofkii u yimaado yidhaahda waxaan rabaa nolosha inaan ka tago waa inay aqbashaa inay nolosha dhaafiso waa tii loo dhistay in nolosha la ysku hayo oo dadka lagu xejiyo nolosha waa maxay macnuhu waxa weeyaan the purpose of life baan la fahmay waxa la garan waayey maxaa loo nool yahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay markaa noloshan adduunyada geeri waa qasab inaad dhadhamiso waxaad see ajarkaaga ugu weyn helaysaa maalinta qiyaame ee guusha dhabtii waxa weeyaan baa ilaahay leeyahy faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz qofka naar la dhaafiyo ee janno la geeyo kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi amaa haddaad aakhire arki kari weydo wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala